laakiin waxaan ku sheegay mar walba anaga de gobolada kale wax ka bedelanahay gobolka inta badan dhacdooyinka ma taqaana oo sida boobka iyo maxaan ku yiraahdaa ajaanib nacabti iyo waxaan la yiraahdaa march meelaha ka maqalno inta badan kama dhacaan walow si hoos aan la xiriirnay ma taqaana laamaha amaanka inoo sheegeen haddii ay dhacdo isku day in aan loo wadaagno waxaa jirtay 10kii bishaan aan u maleynaa maalin ay isku dayeen in ay imaadaan meesha dadka Soomaaliyeed ganacsiga ku leeyihiin Zinaville aan wargelinay oo laga hortagay waxaa kaloo jiro cabsi ah in 30ka bishan afwan waxaan ka wadaa bishii 6 30keeda qolada la yiraahdo March ay imaan doonaan Rustenburg ayadoo ma taqaana horkaca in la yiraahdo kuma malawo oo inta badan hadda ma taqaana howlgaladan oo ma taqaana ajaanib nacabka hogaamiya oo horgoodayo oo aan maleynaa deegaan ahaan reer mafkiin inuu yahay baan ka cabsi qabnaa laakiin dabcan waxaan u maleynayaa si hadda aad ka aragto Durban iyo Eastern Cape annaga si oo kale aan noqon doonin baan filaynaa waaya marka waxaad sheegtay inay tukaamo xiran ay jiraan oo deegaana oo koleyto gobolka ka tirsan wax Soomaaliya ah oo tukaamadaas xirmay oo ay Soomaali leeyihiin ma jirtaa maya horta Xasan saad ogtahay inta badan annaga sanadihii ugu dambeeyay sidii hore tukaamadeenna ma taqaana kushimada ugu yaalaan haday ku yaalaan wax yar oo kooban baa noo soo haray inta badan markay sharci noqoto Soomaalida inta badan xagga sharciyada u nugul waaye aad bay iskaga ilaaliyaan meelaha hadda ma taqaana ninkan hadda aan ku sheegay oo degan mushkiin oo galada ka wadana dabcan ogaalkeen waxda hadii sanadaha dambe Soomaali ko ilaa ay taqaana tukaamo ku yeesheen mooye inta badan anaga tukaamo ku mulihin laga yaabaa ko ilaa inaan magaalada ku leeyahay marka hadda ilaa hadda ma hayn tukaan Soomaalidu arimahaas loo xirmahayn waayahay maadaama cabsi la qabo oo ay suuragal tahay in kooxda March ay yimaadaan deegaanadaasi adiguna aad tahay gudoomiyihii deegaanka inkastoo aad ku meel gaar tahay ma jirta waa maxay baaqaad u dirayso dadka Soomaaliyeed si ay uga fawljignaadaan hadii in case ay dhacdo in ay nimankaasi soo gaaraan deegaanada waad naxsan horta waa horta waxaan baaqa koowaad aan doonaa waxa kamid ah in horta marka koowaad ay feejignaadaan waxa la yiraahdaa aadan lahayn waa dareena lagu joogaa marka dabcan hadii tukaamo la xirayo tukaamada inkastoo tukaankiisu ma taqaana ugu muhiimsan yahay hadana arrinkan soo gaaray wuxuu yahay in ay rabaan ajaanibta oo dhan wadanka laga saaro marka dabcan shalay marka anaga imaanaynay tukaamo ma wadanin oo anaga ma taqaana gacmo marana wadankan soo galnay dabcan wixii dhici doona ma naqaana laakiin mar walba nafsada muhiimsan shacabka waxaan u sheegaynaa in horta marka hore ay feejignaadaan haddii ay dhacdo ma taqaana in arrimo noocaas ay jiraan jaalida la soo xiriiraan annagana laamaha amniga aan u sheegno meelaha ma taqaana rabshadaha ay ka socdaan ama mudaharaadada ay ka socdaan inaysan tegin haddii la yiraahdo oo ma taqaana xaafad kasta inta badan waxaa ka jirta qolada CPF haddii CPF ma taqaana xaafada degan ay xiriir fiican leeyihiin in ma taqaana si hoos ay ula shaqeeyaan oo intay dhacdada dhicin ka hor CPF ma taqaana ay wargeliyaan ama annagana soo wargeliyaan si ma taqaana looga hortago waayahay gudoomiye gobolka aad ku nooshihiin ama gobolka aad gudoomiyaha ka tahay North West maanta waxa ka dhacaysa xafladii weyneed 25 May maalintii aasaaska ururkii Afrika isla markaana maanta la filayo in halkaas isugu tagaan madax aad u tiro badan shirkaas maxaa maanta in looga hadlo ay u badan tahay aad isleedahay horta shirka maadaama hadda ay jiraan ajaanib nacab si hoose ma taqaan hadda annaga xiriir gooni ama xiriir ma taqaan hadda aan la sameynay ama in la soo sameeyay jiraan dabcan waa dadkaan u maleynayaa siyaasiyiintana arrinka ay ku aragtiyooyin ku kala aragtiyooyin qaar baa aaminsan in ma taqaana barnaamijkan in madax loo geliyo ma taqaana siyaasiyiinta wadanka qaarna
mataqaanaa kulli maadaama ay doorashada ay soo dhowdahay ayagoo rabo inay shacabka iska galaanba waxay leeyihiin dee mudaharaadyadan ajaanib necab ma ahane shacabka dareenkooda ku muujinayo marka dabcan kulli aragtood oo lagu midaysay kama imaan doonto laakiin dabcan kulli waxaan u maleynayaa inta ugu badan shacabka waa lagula hadli doonaa waxaan dhihi doonaa dee dhib ha geysanin maxaan ku yidhahdaa arrimaha wadaan dee hay-adaha shaqo ku laho sida hay-adda socdaalka iyo booliiska shaqo ku lah mataqaanaa sharcigana gacmaha la geeyay in la dhihi doonaan aaminsannahay